soo dhawow waxaad ogtahay inaynu bartan kugula wadaagno farqiga dhaqamada bulshooyinka dunida, xadaaradaha, juqraafiga iyo xogaha dahsoon ee aadanaha nolosha adduun saameynta ku yeeshay. doorkanna waxaynu kula wadaagaynaa 8 xaqiiqo oo aadan ka ogeyn duqda ah boqoradda England Queen Elizabeth II oo muuqeenani ku saabsan yahay. 21 Abriil 1926 ayay dhalatay Elizabeth Alexandra Mary Windsor, waana boqoradda England iyo dalal kale oo kamid ah kuwa loogu yeero barwaaqo sooranka. waa boqoradda ugu muddo xilhaynta dheer England, waxayna talada la wareegtay markii aabaheed King George kii 6 dhintay 1956. waa dhab in wax badan laga ogyahay waayaha nolosheeda, kuwanse waa 8 xaqiiqo oo ay maangal tahay inaadan ogeyn. 1. 2 maalmood oo kala duwan ayay u dabaaldegtaa dhalashadeeda. boqoraddu waa qofka ugu ixtiraamka badan England. reer galbeedkuna waxay sheegaan inay adduunkaba ugu ixtiraam badan tahay. ka kaalay midaas. tan yaab kale waa inay 2 maalmood oo kala gedisan xusto dhalashadeeda. maalinteeda dhalashada ee saxda ahi waa 21 Abriil, balse dhalashadeeda sida rasmiga ah loogu dabaaldegaa waa bisha Juun. maamuusyadeedana waxaa ka mid ah inay gaari wadan karto laysansi la'aan iyo inay safri karto baasaboor la'aan. 2. hantideeda waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow $1 bilyan. hanti badan oo maguurto ah ayay mulkiyadeeda leedahay Elizabeth sida la wariyay, balse lacagta ay haysato inkastoo aan xog dhaba laga hayn waxaa lagu sheegaa in ka badan $800 milyan. waxayna sidoo kale leedahay dahab aan qiyaas lagu hayn qiimaha lacageed ee uu joogo. 3. hantida guud ee qoyska boqortooyada Ingiriiska waxaa lagu qiyaasaa $88 bilyan. qoyskan oo sidoo kale ku caanbaxay magaca The Windsor Family, inkastoo ay warbaahinta iyo ogaalka dadka oo dhan ka dheereeyeen xogaha hantidooda lacageed, haddana waxaa la qiyaasaa inay haystaan $88 bilyan haatan, taa oo ah guud ahaan hantida xubnaha qoyskani ka kooban yahay. 4. waxay maalgelisaa tartan fardeed sanad walba ka dhaca Ingiriiska, waana ciyaarta ay jeceshahay inay daawato. Queen Elizabeth waxay maalgelisaa tartan fardeed sanad walba ay uga qayb gasho meelo badan oo kamid ah dalkaasi Ingiriiska. waa ay daawataa loolankaasi oo waa kan ay ugu jeceshahay daawashadiisa, waxayna lacag ka badan $2.2 milyan ku maalgelisay in ku dhow 100 tartan oo loolankaasi ah, kuwaasi oo tartamayaasheedu guul ka heleen intiisa badan. 5. waxay leedahay qaar ka mid ah kuwa ugu qaalisan gawaarida shirkadda lagu magacaabo Rolls-Royce. isweydiin la'aan haweeneydani waxay ku safartaa mid ka mid ah gaadiidka ugu qaalisan, balse shirkadda dooqeeda ahi waa Rolls-Royce oo ay ka haysato gaari midabkiisu yahay nooca loo yaqaano silfarka, ka oo ay ku socoto ilaa 1977. kan waxaad ku arki kartaa xafladaha taariikhiga ah ee boqoraddu ka qayb gasho. 6. waxay booqatay in ka badan 128 dal inta ay saldanada hayso. 95 jirkani inta ay boqortooyada maamulayso waxa ay booqatay inta badan dalalka adduunka. 271 safar oo rasmi ah ayay samaysay. 78 safar oo kala duwan ayay ku noqnoqotay dalalka qaar. Canada ayaa ugu badan dalalka ay booqatay oo ay tagtay 28 jeer, halka Australia tahay dalka labaad ee ay ugu booqashada badan tahay. 7. 3 galaas oo khamro ah ayay cabtaa xilliyada quraacda, qadada iyo cashada. inkastoo warbaahintu isku khilaafsan tahay warinta xogta la xiriirta cabidda khamrada boqoradda, haddana shabakada la yiraahdo Business Insider ayaa goor sii horeysay tabisay in boqoraddu leedahay jadwal khamro oo jangoan. 3 galaas ayay cabtaa 24 saacba, kuwaasi oo ay ka bilowdo quraacda, qadada ilaa cashada oo ay kan ugu dambeeya ka laacdo. dhinaca cuntada, kuugeedii hore Darren McGrady ayaa sheegay inaan Elizabeth ku jirin dadka cunto cunida badan sida odageedii geeriyooday Amir Philip oo isagu ahaa mid cunto cun badan. 8. safaradeeda waxay ku gashaa gaadiidka boqortooyada oo ah kuwo qaali ah. dooni raaxo oo qaali ah, taa oo boqortooyadu leedahay laguna magacaabo Britania. diyaarad jet ah oo iyadana boqortooyadu leedahay, ama diyaaradda ganacsi ee British Airways, midkood ayay ku safartaa marka ay gelayso socdaallada tirobeelka ah ee aynu ka soo hadalnay. mararka qaarna waxay qaadataa tareenka boqortooyada, waa marka ay gelayso safarada gaagaaban.